hodan waxay ka mid ahayd dadka ugu caansan Soomaalida gaar ahaan aaladaha ay bulshadu ku xiriirto iyadoo lagu bartay inay soo gudbiso quruxda iyo horumarka wadanka laakiin nasiib darro hodan iyo saygeedii Fariid Jaamac horay isaguna wasiir uga soo noqday maamulka Jubbaland waxay qayb ka noqdeen ku dhawaad 30 ruux oo ku leeday weerar isugu jira qaraxyo iyo mid toos ah oo muddo saacadaha ka socday hoteelka Cascasay ee koonfurta magaalada Kismaayo. hodan waxay ku dhalatay Soomaaliya sanadkii 1986 qoyskeedu waxa uu ka kooban yahay 4 wiil iyo 7 gabdhood. sanadkii 1987 ayaa iyada iyo qoyskeedu ay u guureen dalka Kanada gaar ahaan magaalada Edmonton ka hor inta aysan u soo wareegin magaalada Toronto sanadkii 1992. hodan waxay waxbarashada dugsiga sare kaga baxday macadka Westhambury halka heerkeeda koobaad ee jaamacadana ay ka qalin jebisay jaamacadda Windsor. waxay sidoo kale shahaado dheeri ah ka qaadatay kulliyadda saxaafadda. Allah u naxariisto hodan waxay ifka kaga tagtay 2 wiil waxayna leedahay khibrad shaqo oo gaaraysa ilaa iyo 13 sano. waxay hore uga soo shaqeysay television iyo raadiyo iyadoo soo saare ka ahayd barnaamijyo dhowr ah oo ka baxay telefishinada dhowr ah. waxay sidoo kale madax ka noqotay hay'adda isdhexgalka dhaqamada iyadoo markii dambena aasaastay televisionka Integration TV oo noqday kii ugu horeeyay ee af Soomaali ku hadla isla markaana laga hirgeliyo dalka dibadiisa. Soomaalidana ay sidoo kale ka daawan jireen baraha ay bulshada ku kulanto. Alxamdulillah. Assalaamu alaykum. Kawraba. inta aysan dhiban ka hor iyada oo ka hadlaysay meel xaflada ayay hodan ka hadashay waxay jeclaan lahayd in lagu xasuusto. insha Allah haday dadka ugu xusuustaan waxaan ahaa qof dadka Soomaaliyeed iska jecel inay walaalo noqdaan dad maanta fahmi kara wadankeeni hadii anaga waxba ka tarin yaa waxna taraya. hadda 2 wiil baan korinaya af Soomaali kuma hadlaan anigiiba hadii mar dhaweed baan af Soomaali si fiican sii baranaya haddaba maxaa soo socda next generation ka kale maxay dadkeeni ku dambeyn doonaan intaasaan isweydiiyaa. so insha Allah YouTube ka marka Google la geliyo Somali people hadii wax wanaag soo baxan inta igu xusuusta. hodan waxay ka mid ahayd dadka naadirka ah ee Soomaalida ah ee mar walba dhanka wanaagga wax ka eega arintaas oo in badan ay dad badan ku xasuusan doonaan. muuqaalada ay soo gelisay baraha bulshada waxay inta badan u badnaayeen kuwa ka hadlaya bilicda iyo sidoo kale kuwa maada oo dadka ay kaga qoslisiin jirtay. And it's so beautiful. Look at this. Afkayga ma garanaysid af Ingiriis aan ku hadlayaa de. Waxaan ku baraya. Adii Soomaali barana Ingiriis ku baraya. Geerjirka. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un. Yusuf Cabdi Shire wararka telefishinka SBC.